بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى من يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnaa qaabkaan u qurxinayno naska ama qoraalan u qurxinayno. qaybteennii hore waxaan kusoo qaadanay sidaan qoraalka farta nooceeda u bedelayno iyo xajmiga iyo dhumucda iyo midabka. cashirkeena waxaan ku eegi doonaa insha allahu tacaala habkaan u bedelano styleskiisa sidaan u bedelno ama nashqado qurux badan aan u siino. waxaan tegaynaa taabka home, groupka font, waxaan kasii dooranaynaa eedaas. markaad nashqadaa doorano waxaad arkaysaa imika inuu nashqadii uu qoraalku yeeshay. bedelaynaa waxaan u samayn karaynaa har baan u samayn karaynaa inagoo tegaynaa shadow. waxaan u samayn karaynaa inaan ka dhigno sida muraayadda oo kale, reflection baan u samayn karaynaa. shadow ama harkan waxaan uga qaadi karaynaa intaan tagno shadow baan leenahay, non shadow. midabkiisa waan bedeli karaynaa inagoo dooranaynaa outline lineka. waxaan u samayn karaynaa humaag. sida dhalaalayo kale. humaaga waan ka qaadi karaynaa ama nashqado dhan waan ka qaadi karaynaa, sii horaan kusoo celi karaynaa inagoo markaa isticmaalaynaa masaxaadda clear formatting oo qoraalkeeni u horeeyey markii u horreeyey sidaan ku qornay ayuu noogu soo celinayaa. saas iyo ka faa'iidaysi wacan iyo cashiradeenna dambe, iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.